bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan dhagaystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafic Show waa 10ka bisha 6 2026 waa maalinimo Arbaca qodobada qaybtan aan idinku haynana waxaa kamid ah Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu soo gabagabeeyay weeraradii military ee uu ku qaaday dalweynaha Iran dhinaca kale fadeexad weyn oo ka dhacday dalka Mareykanka Mexico iyo Mareykanka sidee loogu soo kala dhaweeyay ciyaartoyda kubadda cagta ee adduunka dhinaca kale garsooraha caalamiga ee Umar Artan ayaa maanta lagu soo dhaweeyay hadal kooban ayuu ka jeediyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde qodobo kale ayaa raaci doona saaxiibada aan jecelnahay oo meel wanaagsan ayaan soo gaarnay marka hore in dhiirigeliye ee folowda iyo subscribe ka nagu dhiirigeliyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhinaca kale Iran ayaa gantaalo iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Bahrain Kuwait iyo Jordan iyadoo ka jawaabaysa duqeymaha Mareykanka xalay ka fuliyay gudaha Iran sida ay baahisay Axios dhinaca kale Iran ayaa gantaalo iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Bahrain Kuwait iyo Jordan iyadoo ka jawaabaysa duqeymaha Mareykanka xalay ka fuliyay gudaha Iran sida ay baahisay Axios war hadda soo dhacayna waxa uu sheegaya Mareykanka ayaa ku soo daray isku dayga lagu doonayo in heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Iran waxaana maanta gaaray caasimadda Iran ee Tehran wafdigii ugu horeeyay ee ka socda dalka Qatar oo kala hadlaya saraakiisha Iran sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadka harsan ee wada hadallada socda ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran sida ay ku warameen Fox News iyo wakaalada wararka Iran ee Wana garsooraha loo aqoonsan yahay midka sanadkan ugu wanaagsan garsoorka kubadda cagta ee Afrika Umar Artan ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho isagoo ku soo laabtay halka hadal kooban uu jeediyay waxa ku jirtay inuu yiri Soomaaliya ayaan leenahay hadii ay xumaato iyo hadii ay samaato Umar Artan waxa loo arkaa nin haliyay ah oo qarankiisa garab istaagsan maadaama lagu dulmiyay in uu midabkiisa ilaalshadiisa ay tahay Soomaali asigana uusan u jahanjaxaynin waxa ka soo gaaray dalka Mareykanka ayaa la kulmaya fadeexad aad iyo aad u sareysa oo ku saabsan koobka kubadda cagta ee adduunka muuqaalada farqiga u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico ee ka soo baxay soo dhaweynta xulalka iyo martida ka qayb galaysa koobka adduunka ayaa qabsaday warbaahinta iyadoo Mareykanka uu baaritaano adag fatashaad iyo cilin xubnaha xulalka iyo martida uu sameeyay halka ciyaartoyda kubadda cagta ee dhinaca Mexico lagu soo dhaweeyay ciyaaro dhaqameed iyo soo dhaweyn heer sare ah